qaybtan maanta waxaan kaga jawaabayaa su'aasha ah ma jiraa hogaamiye wanaagsan oo daacad ah jawaabteeduna waa maya ma jiro qof bini aadam ah oo u dhashay hogaamiye fiican oo daacad ah marka laga reebo ambiyadii iyo rusushii uu Ilaahay doortay inteena kale oo dhan ee bini aadamka ahi ma jiro qof aad oran karto qofkaasi waa hogaamiye wanaagsan oo daacad ah oo niyadiisu wanaagsan tahay oo aan danayste ahayn haba yaraatee kuma jiro bini aadamka waana ku cadeynaya saddex meelood ayaan ka tusaya kow horta waxaanu ka hadlaynaa waa qof bini aadam ah dadka bini aadamka ahina saddexdan dabeecadood ayay dhammaantood leeyihiin maadaama saddexdan ay leeyihiin qof bini aadam aynu aamini karnaa aynu ku aamini karno maamulkeenu ma jira waxaynu aamini karnaa waa nidaam waxa loo yaqaan system ma aha qof waana ku cadeynaya kow waxaan ku tusayaa qofka bini aadamka ah inaanu marna noqon karin cadaali two oo ah talabaad waxaan kugu tusayaa qof kasta oo bini aadam ah inuu yahay danayste oo dantiisa uu isagu u raacdo saddex waa qodobka u dambeeya waxaan kugu tusayaa qofka bini aadamka hadduu awood buuxda yeesho inay dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqiyadkiisuba isbedelaan maadaama uu yeeshay awood buuxda aan si kooban kugu wada sharaxo ta koowaad baan soo qaadanaya waxaan aan kala hadlayaa waa political philosophy waa wax laga soo wada dooday ay ka soo doodeen falsafadii islaamku ay ka doodi jireen nimankii ahaa filosofarada islaamka ahaa nimanka filosofarada reer galbeedka ahi iyo rag iyo dumarba laga doodayay waa hagaag ta koowaad baan soo qaadanaya ta koowaad waxa weeye ma jiro qof cadaali ihi ama samayn kara bini aadamka u kala cadaalad qaadi kara tusaalaha aan kugu tusayana waxa weeye waa fikrad la soo qaatay oo la isku tusayay bini aadamku inaanay noqon karin cadaalad oo falsafad ah falsafadaasina waxay tahay tareen ayaa wada maraya sheekada waxaan doonayaa su'aasha inaad ka jawaabto tareen baa wada maraya tareenkaasi marka uu wadada marayo adigu waxaad taagan tahay tareenka dhinaciisa waxaad ku jirtaa qol yar oo muraayad ah qolka muraayada waxaa kugu dhex yaala geer aad marna hore u riixi karto marna dib u riixi karto geerkaa yaraad riixaysaa tareenkaasi markuu wadada uu marayo halka aan imika kaa tusaayo tareenkaasi wadadiisi way kala leexanaysaa wadada kala leexanaysaa adaa gacanta ugu haya tareenkaas adaa gacanta ugu haya labada wado tuu qaadan lahaa adiga ayaa laga rabaa labada wado mid ahaan waxa jiifa oo ku xidhan 5 qof midna waxa jiifa qof dadka aad waxba ka garan maysid 5 qof iyo qofka halka ku xidhan ayaa lagu yiri laba midun baa ku yaala mid saddexaad kuma yaala labada ku yaala aan waxa weeye in ama 5 qof aad jiirsiso 5 qof disho ama inaad jiirsiso qofka kaliya maxaad samayn lahayd madihi choice kale tareenku ma istaagayo tareenka ma joojin kartid tareenka cidimo wado gacantaadaas ku wada adaa baashira gacanta ku haya wadadaasi markay ka soo horbaxdo midna 5 qof jiifto midna 1 qof uu jiifo go'aankaagu muxuu noqonayaa dadkii la weydiiyay 100% waxay ku jawaabeen ama 99.9 waxay ku jawaabeen in ay jiirsinayaan qofka kaliya sababtu waxa weeye dadka fara badan baa la badbaadinaya haddii kol cid dhimanayso wadagu aqligaaga wad ku jawaabaysaa wuxuu ku siinayaa 5 qof badbaadi oo had intii cid dhiman lahayd 1 qof had dhinto jawaabtoodu saama tahay dabcan saasay noqonaysaa haddii jawaabtaadu ay saa tahay waxaad samaysay wax wanaagsan oo 5 qof ayaad badbaadisay tiradii badnayd kolle cid unbaa dhiman lahayd balaakiin waxaad ka warantaa haddii sheekada in yarba meel baa wax laga bedelaya haddii qofka kaliya ilaa markii hore waxaad go'aamisay qofka kaliya in la jiraa jiro soo maaha oo 5 la badbaadiyo sax hadda qofkii kaliya ahaaba waxa laga dhigay hooyada 5 kalena way yaalaan maxaad samayn lahayd ilaa markii hore waxaad tiri 5 ma jiirayo oo 5 badbaadinayo qofka kaliya jiiraya tirada badan baad badbaadinaya balse laakiin imika qofkii kaliya ahaa meesha ku xidhnaa inta laga qaadiba hooyada la siixiyay 5 kalena way yaalaan waxa xaqiiqo ah ila 5 qof jiirayso Soomaaliyeed waxa fikirkaagu sidoo yahay cadaalad oo say tahay Soomaaliyeed sidoo fikiraysa inay isbedelayso oo ay ku xidhnaanayso qalba habka u fikiraysaa cidda meesha ku jirta ee ku khatarta ku socoto haddii hooyada meesha ay joogto 5 qof waxba kama galin laakiin haddaanad kala garanaynin qof 5 qof iyo qofka kaliya marka qofka kaliya jiirsinaysaa taasi qof kastaana saas u sameynaya taasi maxay ku tusaysaa cadaalad in laga filanaynin oo wax cadaalada qof bini aadam aanu samayn karin sidaa awadeed maadaama aanu qofku cadaalad lahayn oo uu nooca u sameeyo qof walibana uu taa samaynayo ogow waxaan ka reebay ambiyadii rususha waan ka reebay uu qof walibana taa samaynayo
halkaasi maxay la tustay qof lagu aamini karo dadka inuu u kala cadaalad qaadaa haba yaraatee horta ma jiro qodobka labaad waxaan ku yidhi qof waliba waa danaystay ficil kasta oo aad samayso noocu doono ha noqdee dan baa kugu jirta dan shakhsiyadeed oo adig ah iyo aniga iga hadlaya dhammaanteed isku mid baynu nahay su-aalo fara badan baa la iska weydiiyey waxaa la isweydiiyo la yidhi iminka tusaale ahaan bal iminka kasoo qaad soomaalidu waxay ku odhanaysaa hor ilaahay ayaa waxaa loo sameeyey hor ilaahay markaad u fiirsato micnaheeda dhab tahay waxa weeye waa qof ilaahay ajar iyo kaga doonaya janno wax wanaagsan inaynu samaynaa waa waajib baynu wadato waa wax fiican balse laakiin kelmadda soomaaliga marka lagu leeyahay hor ilaahay marmarka qaar waxaa loo isticmaalaa inuu qofku ficilkaa u sameeyo isaga oo aan wax allaale iyo wax isaga dano ugu jirto oo faa'iido ka helaya aanay jirin abeen ficil kasta oo aad samayso baan kugu idhi ficil kasta oo aad samayso dan baa kugu jirta ama bini aadamkaad wax kaga doonaysaa ama waxaad doonaysaa qalbigaagu inaad ku jijiso aad ku xasiliso ood isu diido murugada oo murugada uu kaa dul qaado ama ilaahay baad ajar kaga doonaysaa tusaale yar baynu soo qaadanaynaa oo weliba tusaalaha ugu adag kuwa ka mid ah maxaynu soo qaadanaynaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan ka soo qaad hooyadu markay ilmaha yar habeenkii u toosaysa caanaha siinaysa naaska jaqsiinaysa isqadhex u kacayso waa maxay iyada faa'iidada ugu jirtaa baa la isweydiiyey dalaysi ma aha laakiin waxaa lagu jawaabay waa dan danteeday hooyadu eeganaysa dantay eeganaysaa waa maxay ilmaha yar haddii aanay saqda dhexe u kicin aanay caanaha siinin waxay ogtahay murugada hadduu ilmaha yari saa ku xanuunsado oo uu ku dhaawacmo ama uu ku geeriyoodo murugada hooyadaa ku dhacda nolosheeda ka bixi mayso habeenkii yaraayo ooyaya haddaad ilmaha yar u toosi lahayd murugadaasi waxaa laga yaabaa inay hooyadaa wuxu dhintay waadato ama ku xanuunsato ama nolosheeda farxadda ma aanay dareemin sidaa aawadeed qalbigeeday difaacaysaa hadday murugaday doonaysaa inay iska difaacdo murugaday iska ilaalinaysaa therefore way ku khasban tahay inay ilmihi raawax siiso waxaa la isweydiiyey ninka dagaalka gala ee dagaalamaya ee doonaya waddanka u dagaalamaya isagu waa maxay faa'iidada ugu jirta faa'iidooyin fara badan baa ugu jira boqolaala kow waxaa laga yaabaa nin caraysan oo dad qoyskiisa ka mida la dilay inuu yahay aarsanaya waxaa laga yaabaa nin doonaya inuu magac yeesho la yidhahdo waa geesi oo dadku ammaanan oo ammaanta doonaya inuu helo waxyaalo fara badan ayuu isla yeeranaya waxaa la yidhi waxaad ka soo warantaa ninka caalimka halkaa fadhiya shiikha ee dadka wacdiyaya ee maanta dhan casharada u dhigaya lacagna aan ku qaadanayn adduunyana aan ku qaadanaynin muxuu waa maxay danta ugu jirta wax weeye ilaahay baa jar kaga raba mar kasta oo nin caalamihi ama shiikhii lasoo hor istaago inoo akrinaya casharo dee ilaahay baa jar siinaya kuwa dhegaysanaya ilaahay baa jar siinaya ajarkaasuu shaqaysanaya bilaashuma fadhiya meesha dan buu wataa marka waxaan taana kugu tusayaa ficil kasta oo aad ii keento noocu doono ha noqde bal soo qor oo markaad klibka yar daawato kusoo hoos qor ficil kasta oo aad ii keento qof bini aadam uu sameeyey dan uu leeyahay baa ku jirta ee umuu samayn wax aan dari ugu jirin taasna waa qodobka labaad maxaynu tii hore sheegnay qofku cadaalaya ma jiro kow talabaadna maxaynu nidhi qof waliba waa danaystay hadduu qofku labadaa uu leeyahay balkaad saddexaadna aynu eegno ta saddexaad aynu soo qaadanayna waxay noqotay qofka bini aadamkaahi hadduu awood buuxda uu yeesho inuu dabeecaddiisu bedelmayso inuu samaynayo ficilla aanu samayn jirin sababtaan ku sheegaya tusaalaha saddexaad waxa weeye kow hadda maanta waxaa lagu siiyey cartoon ama fargalka bahalka la yidhaha fargalka waxaynu ku naqaataa dushiisa yaree sare waxay leedahay bahal yaroo boorino ama dhagax baa ku jira ama dahab baa ku jira ama diamond baa ku jira kaartunkaa aad xidhan tahay haddaad saa u wareejiso oo kaartunkaasi madaxiisu uu hoosta maro waxaad noqonaysaa invisible ama jin oo kale cidu ka arki mayso cid ilaahay abuurtoo ku arkaysaa ma jirto aduu dadka waad arkaysaa waad maqlaysaa gidaaradaad ka dhex baxaysaa meel kastaad mari kartaa albaab ku xidhaya ma jirto gidaarka adag ee aad arkayso ayaad sidii jinka saa u dhex maraysaa oo gidaar kuma soo celinayo awood baad leedahay qofka doonto waxaad doonto aad ku dhufan karto waxaad doontaad qaadan kartaa waxaad qaadatana way qarsoomayaan awooddaa maanta bar haddii lagu siiyo maxaad samayn lahayd sheekada qof kastoo dhagaysta marka lagu yiraahdo waxba degdeg baa maskaxdiisa ku soo dhacaya waxa maskaxdaada ku soo dhacayana waxa weeye meesha kuugu adag ee aad isleedahay ma geli kartid ayada wada yeelanaysa therefore waxa imanaya inaad meesha gasho haddii kaartunkaa lagu siiyo qof bini aadamihi siduu doono iyo wuxuu doonaba qalbigiisa iyo wanaagu doono ha is yidhaahdo markii horeba wanaag baa kugu jiray mar allaaliya kaartunkaa marka lagu dhiga invisible noqoto waxaad samaynaysaa waxaana marka hore ku kacday sababtana waan kuu sheegaya bini aadamka waxa xakameeya horta waa baqdin wanaag kuma xakameeyo maaha inaad qof wanaag u dhalatay tahay baqdin baa ku haysa
baqdina haddaanay jirinna bahal baan noqon lahayd haddaba fiirso sababtaan kuu sheegaya aad baqdinta ku hayso markaad iminka suuqa marayso gaariga waxaad ugu dhici lahayd barta yaala inaad xadto ama dukaamada aad boobto ama dadka xoolahooda aad boobto waxyaalahaad ugu dhici laadahay dadka badankooda waxa weeye waad baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa dadkii xoolaha lahayd ee kaa daba yimaadaan ay ku dhaawacaan wax ku yeelaan ama dowlad baad ka baqaysaa iyo boolisku soo xidha haddii inta labada midna aanad arkaynin ka war oo aanad cidina ku arkaynin boolisku qabanayaana aana jirin markaana ilaahay baad ka baqaysaa qof iimaanle haddaad tahay hadda eeg waxa ku hayaaba waa baqdin ama boolis baad ka baqaysaa ama cid kugu samaysa argoosi baad ka baqaysaa ama waxaad ka baqaysaa cadaab bal waxaad in yar ka fikirtaa oo aan ku tusaya dee dhab maaha mana dhici karto laakiin waan ku tusaya haddii maanta lagu yidhaahdo boolis ma jiro cid qabiiloo yar iyo cid isu hirinaysa qaraabo isu hirisaana ma jiro qof rag iyo dumar qof waliba marka uu dhasho waa keligii banaankaasuu baxaya isagoo keligii baa isdifaaciya cid u hirinaysaana haba yaraatee ma jirto dowladna ma jirto laba aakhirana cadaabe ma jirto bal saddexdii laga baqayaba haddii lagu yidhahdo ma jiraan oo haddaad inantaa kufsato cid u soo aaraysa oo imanaysaa ma jirto haddaad ninkaa dukaankiisa boobto ma jirto haddaad ninka dishaaf xaaskiisa ka qaato cid ku imanaysaa haba yaraatee oo ninkaa difaacaysa ma jirto qof waliba waa naftiisa boolis iyo dowlad difaacayaana haddaanay meeshaa jirin aakhirana haddii lagu yidhahdo cadaabe ma jirto balse intaaba haddaad weydo qof nooceyba ay noqon lahayd dee bahalku waa kay libaaxu marka uu soo bixiyo xayawaanka wax cunaa markay cunaan iyagu wax way neef bay cunaan calooshu markay dherto uu seexdaa balse laakiin adigu bini aadam baa tahay ku seexan maysid intaa ma joogsanaysid marka maxaan ku tusay saddexdaan ku hayaaba waa baqdin maxaan ku yidhi argos inaad ka baqato dowlad inaad ka baqato iyo aakhir inaad ka baqato saddexdaasaa ku haya baqdintaa maxaa kaa saaraya kaatuunka markii lagu siiyo invisible noqotay haddii aad ilaahay ka baqayso aakhira kaa baqayso ma qalbigaaga soo jooji kara balse laakiin kaatuunka marka lagu siiyo horta boolisna ka baqan maysid argosna ka baqan maysid waxaad doonta labadaa ku samaynaysaa dadkeena bini aadamkana waaba taqaanaayo qofku waxaa la yidhi intaynu daganna baynu alla naqaanaa haddii aad awooddaa yeelato maba xasuusanaysidba badbaad galaysaa aan soo gabagabeeya markaa maxaan idhi markaa waxaan idhi haddii qofku aynu ogaanay aanu ahayn cadaali oo dareenkii dadka lagu xidhay markay hooyada noqoto aana diraynin hadduu qofku danaystay yaho ficil kastoo samaysa ay dantaada tahay oona cid kale u dareynaynin saddexaad haddii markaad awoodda yeelato waxaad doonto aad samayn karto bini aadamko dhami markaa dabeecadda qof kasto anigaga igu daro aynu dabeecadaha leenahay ma ku aamini karnaa qof nolosheeni ma ku aamini karnaa qof maamul in loo dhiibo sababta keentay in maamul inoo samaysmayo inoo dhismi waayo waxa weeye qof shaksi baa meel qabanaya ama waa la dooranaya markaasaa la isla kacaya waa nin wanaagsan waa nin balaaya ka dhacday waa nin daacada waynu aamini karnaa waxba kama jiraan waa waxaynu u burbursannahay waa waxaan marka ninka inta la horboodo sacabka loo tumo loo qiiroodo la yidhahdo waa hogaamiye wanaagsan waa hogaamiye cadaalada waa hogaamiye daacad ah yani waxaa markaynu shubayno mid kastoo qabsataa markuu yimaado 5 sano wuxuu ka tagaa inagoo ooyanoo cabaadaynoo muraaro dilaacsanoo caayanoole waxayaa naga dejiya mid waliba saasuu soo sameeyo loo dhiibay maamul laakiin dowladan kale ee horumartay maxay sameeyeen waxay taasay ogaadeen waxay leeyihiin political philosophy wax leeyahay falsafa siyaasadeed bay leeyihiin waxaa markii la dhex galay saddexdaa qodob oo kaliya bal u fiirso ayaa la ogaaday qofka inaan la aamini karin haddii qofka la aamini karin saa la isu maamulaya nidaam system nidaam kaliya ayuunbaa wax maamuli kara ma jiro qof daacadihii ma jiro qof cadaaladihii ma jiro hogaamiye fiican oo xalaalo oo dhab ah oo la eegi kara therefore waxaynu iminka markaa u baahannahay ka kor maskaxdaada waxa ka korto wax aqri waxa lagu ogaadaa markaad wax barato maskaxdaada waxa ka korto hebel baa daacad oo hebel baa wal aqaan waxba kama jiro ama sheekh ha noqdo ama wadaad ha noqdo ama waran ha noqdo waa isku mid ka bax waxba kama jiraan nidaam baa haya maanta wadinka arkay Trump waa madaxweyne waxyaalo fara badan isleeyo ku dhaqaa kuma dhaco inay yaroo kaliya maxkamad fadhida ku oranayo unconstitutional maaha waxa la sharci aad ku dhaqmaysaa uu joogsanaya waxay samaysteen nidaam baa la sameeyay ah systemka iyo nidaamka la dhisay qof kastoo yimaada ka sax xakameynaya because waxay ugu qofka lama aamini karo taariikhdooda soo arkay inagu dawladiyada nidaammaynu soo marinay waa dad soo jabay soo hoogo soo bacay oo boqolaal ay aamineen oo isku rogay sidoo loo kala noqday bay arkeen de markii la xijin waayay baa waxaan xal ma hadee
ما أنت نمو صعب تنو إيمانا يا بريتو مركو بحر نقدر من عبادة لو طيب كده جا هيستوب بقولات كنا صلنا كهر بالسمية إن جينا كمان نفايد صلنا اللي بنا آدم كنا وحي وناكسن خبرة ده ولا يقطع ده وحي حنا إن الدين تيجي ده كنا كسر كذا ولا كترين لكن وحيرا نوع عسى كتصيا إن أهل تشري كرين هو جام يسوق في عليه وإلا جبحها تاسمع كم حرف وقعد عليا ما تشرو هو جام يتبع أما هو جام يتعب وما هو جام كراي سيستم بقى هو جام سيستم هلا جفكره هلا جبحه شيء كذا يرجع